kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal soo dhowaada dhammaantiinba qaybtii hore ee sheekadii gabadhii dishay carruurteeda waxa inoo maraysay iyadoo ay boolisku waayeen haba yaraatee cilla sifooyinka ama tilmaamaha ninka ay sheegtay Dian in uu soo weeraray. iminkii haatanna ku soo dhowaada qaybta labaad ee sheekada. intii lagu guda jiray baaritaanka gaadhiga Dian ayaa waxa soo ifbaxday waxyaabo shaki leh, waxaana la arkay kuraasta dambe iyo midka hore ee dareewalka ku xiga oo dhiiga carruurta buux dhaafiyey iyo kursiga dareewalku aan wax dhiigahi ku ool. sidoo kale wax raad ah oo muujinaya in rasaasi ku dhacday lagama helin daaqada ay Dian sheegtay inuu dilaagu xabad ku dhuftay isagoo carruurta ku wada. arrinta kale ee jahwareerisay bilayska ayaa ahayd in mid ka mid ah markhaatiyaashu uu gaadhigiisa ku kaxaynayay wadada isla habeenka shilku uu dhacay, uuna sheegay inay isdhaafeen gaadhigiisa gaadhiga Dian kadib weerarka uuna u socday dhanka cisbitaalka. ninku ma uusan ogeyn waxa dhacay, Dianna ma aysan weydiin caawimaad, laakiin waxa uu arkayay inay si tartiib gaadhiga u wado. qiyaas ahaan waxay ku waday wax ka yar 15 kilomitir saacadda gaadhiga. taasi waxay keentay layaab kale oo ah hooyo ubadkeedii dhiigbaxayaan in ay gaadhiga si tartiib isaga wado iyada oo kula jihaysan cisbitaalka. shaqaalaha caafimaadka ayaa iyana booliska u sheegay in Dian ay u muuqatay inay ku sugnayd xaalad wanaagsan oo ruux ahaan ah markii ay timi cisbitaalka. marka la barbar dhigo sida laga filayay hooyo 3 carruur ah hadda la dilay. markii ay u sheegeen in gabadheedii Cheryl ay dhimatay, waxa ay warka ku qaadatay si deganaan ah iyaga oo filayay in ay qayladooda cisbitaalka gilgili doonto, waana arrin qof hooyo ah laga filayay. waxaa jira isna muuqaal waraysi laga duubay toddobaad kadib dhacdadaas ay ku dhimatay mid ka mid ah ubadkeedu, halka labadii kalena ay xaalad adag cisbitaalka u yaaleen. waraysigaasi waxa uu muujinayay inaanay uga muuqan qof ka niyad xun waxa ku dhacay ubadkeeda, waxaana muuqatayba inay marmarka qaar qoslaysay kaftamaysayna. waxaasoo dhan markii la isu geeyey taasi waxay booliska ku dhalisay inay shaki weyn ka qaadaan dhacdada ay Dian u soo warisay ee ay sheegtay in ay habeenkaa ku dhacday. 2 usbuuc kadib waxa koomo dheer ka soo baxday inanteedii weyneed ee Christy. markii ay boolisku arkeen inay hadli karto, waxa ay weydiiyeen yaa xabadda idinku dhuftay, waxaanay ku jawaab celisay jawaab shoog abuurtay oo ah hooyo ayaa xabadda nagu dhufatay. mahadsanid daawade. qaybtii labaad ee sheekaduna halkaa inoo joogto, waa inoo iyo qaybta saddexaad haddii alla idmo.